Bilaha hore ee uurka, inay hooyada isku aragto matag, lalabo iyo wareer waa xaalad normal ah, balse 3 bil ee ugu dambeyso weli ma isku aragtay matag iyo wareer. Haddaba maxaa keeni kara? Maxaase lagu daaweeyaa? Mase tahay xaalad normal ah oo caadi ah? Salaamu calaykum. Asxaabteyda kusoo dhawaada YouTube channelkeena. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir si aan kuugu soo gudbino macluumaad dheeri ah oo ku saabsan hooyada iyo dhallaanka. Sida caadiga ah, 3 bil ee ugu horeysa ee loo yaqaano first trimester waxaa gabi ahaanba isbedelayo jirka hooyada. Waxaa lasoo deynayaa hormoono kuwaas oo ka qayb qaadanaya koriinshaha uurjiifka, ayaa keenaysa inay hooyadu isku aragto calaamado aysan hore isugu arki jirin sida matag, wareer, lalabo iyo wixii la mid ah. Waana xaalad caadi ah in 3 bil ee ugu horeysa ee hooyada isku aragto matag iyo wixii la mid ah. Xaaladaas wareerka iyo lalabada ah, hooyooyinka inta badan waxa ay normal noqdaan oo uu ka joogsadaa bisha 3aad. Hooyooyin qaar ayaa jira oo uu gaaro ilaa bisha 4aad ama isbuuca 17aad. Intaa wixii ka dambeeyo ama bisha 4aad wixii ka dambeeyo, hooyada haddii ay isku aragto matag, maxaa la gudboon? Maxayse tahay in ay sameyso? Waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid ah in hooyada ay si too much ama aad u badan ay u isticmaasho cuntooyinka macmacaanka ah oo ay ku badan tahay sokorta. Waxaa kaloo keeni kara hooyada inay isticmaasho xaddi badan oo basbaas ah ama cunto ay ku badan tahay basbaaska. Taasna waxay keeni kartaa bakoor ziyaada ah iyo lalabo. Sidoo kale haddii cadaadiska hooyada uu sareeyo ama ay jirto dhiigkarka uurka, waa xaalad kale oo keeni karto matag iyo lalabo. Hooyada haddaysan in muddo raashin cunin ama ay dareemayso gaajo, ayadana waxay keeni kartaa lalabo. Sidoo kale haddii ay qaadato xaddi badan oo raashin ah hal waqti, ayadana way saameynaysaa oo waxay keeni kartaa lalabo. Xilliga uurka waxaa wanaagsan hooyada inaysan hal mar qaadanin raashin fara badan, sidoo kalena ay iska ilaaliso baahida. Tusaale ahaan, maalintii meeshii ay wax ka cuni lahayd 3 waqti ama 2 waqti, waxaa wanaagsan inay tirada ay badiso oo 5 waqti iyo wixii la mid ah ay cunto qaadato, ayadoo qaadanayso xaddi yar oo aan badnayn. Maxaa kula gudboon haddii aad isku aragto lalabo ama matag bilaha dambe ee uurka? Midda ugu horeysa, waxaa jira hooyooyin bisha 1aad ilaa bisha 9aad ama ay ka dhalayaan isku arka lalabo, wareer iyo matag. Ma badna tiradooda, waa 5%. Haddii hooyada tiro 3 jeer ama wax ka badan maalintii ay matagto, waxaa qasab ah ama emergency ah in ay dhakhtar booqato, weliba si degdeg ah. Waayo waa xaalad fuuqbax ah oo aan u wanaagsaneyn caafimaadkeeda iyo midda uurjiifkaba. Haddii aad qaadato xaddi badan oo raashin ah ama aad si too much oo aad u badan aad u isticmaasho cuntooyinka ay ku badan tahay sokorta ama saliidda, waxaa wanaagsan inaad iska yareyso. Waayo waxaa dhici karta in ay tahay waxa sababayo mataga ama lalabada. Sidoo kale iska ilaali inay calooshaada faaruq ay noqoto, waayo baahida ama gaajada uma wanaagsana hooyada, sababtoo ah uurjiifka ayaa la qaybsanaya wax walba oo ay qaadato. Sida awgeed waxaa wanaagsan inay iska ilaaliso gaajo. Maxaa dhibaato ah oo ka dhalan kara? Sida aan wada ogsoonahay, 3 bil oo ugu dambeyso waxaa koraya oo uu koriinsho ku socdaa miisaanka uurjiifka. Hooyada waxaa loogu talagalay inay isticmaasho oo ay qaadato cuntooyin nafaqo leh, sidoo kalena ay mar walba follow up u sameyso oo ay booqato dhakhtarkeeda si ay ula socoto miisaanka uurjiifka. Balse haddii cunto walba ay qaadato ay sameynayso vomiting ama matag, waxay saameyn toos ah ku leedahay uurjiifka, waayo miisaankiisa ma noqonayo mid koraya ama sare u soconayo. Waxaa dhici karto in ay dhasho cunug miisaankiisa aad uga yar. Waxaa kaloo imaan kara uurjiifka haddii uu waayo nafaqadii ku filneyd in uu dhasho asoo bilo dhiman ah ama waqtigiisii aanan gaarin.
hooyada dhiig la-aan ayaa ku imaan karto maadaama raashin walba oo ay qaadato oo nafaqo ah ay dib usoo celinayso. Waxaa ku imaan karo dhiig la-aan, taasna waxay keeni kartaa in dhiig lagu shubo. Miisaanka hooyada iyo muuqaalkeedaba waxa uu noqonayaa mid luma oo doorsooma. Ugu dambeyn, haddii 3 bil ee ugu dambeysa ee uurka aad isku aragto lalabo, wareer ama matag, waxaa wanaagsan inaad la xiriirto dhakhtar si baaritaan guud lagugu sameeyo loona fiiriyo wixii sababay matagan, waayo ma ahan xaalad normal ah ama caadi ah. La xiriir dhakhtarka, isaga ayaa ku siin doona talada kugu habboon. Haddii ay noqoto inaad daawo qaadatana, waxa uu ku siin doonaa daawada kugu habboon. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.